gabadhan u jeedaan waa caasho aadan ugaas waa gabadha kaalinta koowaad ka gashay imtixaanka oo kasoo dhex baxday 30 iyo maasaada 1000 arday oo baastay iyo 5000 ee dhacday gabadha kaalinta koowaad ka gashay fariin aan u wado madaxda dawladda waa hadda maqlaayaan way jirtaa oo ku saabsan gabadhan mustaqbalkeeda balse waxa ka horeysiinayaa gabadha iyo hooyadeed waa la wareystay gabadha waa agoon caasho waa gabar yar oo agoon aabe wuxuu dhintay ayadoo 12 sano jirto hooyo soo koris hooyo laftarkeeda waa la wareystay oo waxay tiri aniga ciyaalkan dabkaas waxa u saari lahaa iyo gurigaas ugu nadiifin lahaa shaqadeeda qabsad waxay kaloo maamada tiri wax alaali wixii jeebkayga soo galo waxa ku qarsh gareyn jiray tiri in macallin private ah Soomaaliya macallin private kaalay macallino xisaabta gabadhan ugu bar kaalay macallino ingiriiska gabadhan ii bar marka maamada horta wataas waxay astaan u tahay hooyada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan ilaan waxaan ogtahay dhagaan naga qabsaday inta badan Soomaalida baraha bulshada joogto maama qeylinayso qabyaalad iyo quran wada bud wadato ordayso waxyaabaha kamarada ay qabato maamadan waa the silent majority waa maamooyinka Soomaaliyeed ee aamusan ee aan la maqlin maanta oo kale la maqlo kamarada markay maanta hortimid waa dareemaysaa horta idin fasaxo marka hore waxaan idin fasaxayaa caasho waa gartay markii aad maqashay kaalinta koowaad inaan gashay dareenkaaga sidoo noqday dareenkayga walaal markii koowaad isku naxay maadaama aan filinaynin markii labaadna waa farxay alxamdulillah waa gartay maxaa rajaynaysaa marka waxbarashada ma sii wadanaysaa mise dhinaca guurka u badanay maya waxbarashadeeda sii wadanaa insha Allah ilaa heerka intee gaarsiisay ilaa heerka ilaahay wayahay hooyo waatana oo ayadana wax yar ka hadlayso gabadhaas anoo casar iska tukanaya gabar dariskayga ii soo sheegtay maba ogeynane anoo casar tukanaya gabar dariskayga ii soo gashay tir gabadhaad kaalinta koowaad ee gashay ma ogtahay gabadhana dugsiga ku maqneedba ku dadaali jiray inay wax barato inaa maaragtay dugsiga iskoolkeeda iyo dugsigeeda ay waqti fiican aado inaysan ka daahin inay maaragtay wixii markaas ay u baahanto asaasiyaada inaan maaragtay isku taxaluujiyo inay hesho maaragtay inaan bareefad geeyo inaan macallin guriga keeno waxyaalo aabbo u dhintay waa murugoonay waa abala'aana nagu dhacday agoonaa noqonay guri joogtaa iska ahay ilmahaas maaragtay gurigaas nadaafadooda cuntadooda inay helaan dharkooda maaragtay waxbarashadooda inay ku dadaalaan waxaas un baan ka shaqeeyaa animaa shaqo inta aadaan shaqo lacag su-aashaas oo ah turkiga heshiisyada ala galnay azerbaijan heshiisyada ala galnay masar heshiisyada ala galnay markii laga soo tago dhanka difaaca iyo dhanka horumarka iyo markii laga soo tago waxbarashada waxay ka tahay kaalinta koowaad tusaale ahaan turkiga dowladda heshiis waxaa la gasheen ah scholarship in arday Soomaaliyeed oo boqolaal sanad walba Turkiga uu qaato taas oo liiskeeda iyo magaca laga rabo dawladda federaalka inay soo gudbiso sidoo kale Azerbaijan heshiiska ugu dambeeyay la galeen taas Shiinaha oo hadda maanta wasaaraha uu joogo heshiis waxbarasho ayaa kamid ah waxyaabaha meesha looga wada hadlaa lagu soo heshiinayo horta habeen iyo maalin waa laga baxaa elaborada Soomaaliya arday Soomaaliyeed oo jaamacadahaas dunida aadayso way jiraan half kamid ah ardadaas jaamacadaha dunida waa scholarship ka helo Yurub taas ay u sii cararaan waa dad iska gambiya waay sababtana waxay tahay waxbarashada oolba kuma fiicneen ani caayiga ma ah waa ardayda Soomaaliyeed iyo dibadaha loo qaadaa ku dhahay 100 hadii la qaado 40 laga yaabaa inay serious wax u bartaan inta kale waa gambiyaan arrin waa kaas baan dheh gabadhan haddii scholarship yadan dawladda gacanta ay ku hayso ee boqolaalka ah afka hore haddii ka geli weyso dawladdan weligeed ma cafinayna haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed cafis ma jiro gabadhaas haddii saan looga aamuso 5 sano hadda kadib haddana ayadoo soo taagan oo dhihi doonto dawladda waxba ima siinin meesha waa lagu dayacay haddee taas dhacdo dawladdan iyo madaxdeeda weligeed ma cafinayn waa ogahay dhibca aruursiga dawladda ku jirtaa waa ogahay in gabadhan iyo saddexda kale kaalimaha koowaad ka galay waxaa loo sii wadaa madaxtooyada qaranka ee Soomaaliya wardhiigle ee u sii socdaan waa ognahay biri haddaysan dhicin biri dambe way dhacaysaa oo madaxweynaha iyo salaanti iyo isku sawirka iyo wixii oo dhan way soo socdaan laakiin waxa ka rabnaa madaxweynaha gabadhaas iyo gabadha ku xigto iyo wiilka ku sii xigo adig kuwa 4 ilaa 5 kaalin ee hore ee galay waxaan rabnaa si degdeg ah ina baasaboorkooda iyo scholarshipkooda iyo adduunkooda u habaysid si degdeg ah gabdhahaas xitaa bilyaysan kasoo wareegin ayagoo Turkiga joogo fasal dhex fadhiyo aragno
haddaysan taas dhicin alloona meesha wax ay ku haysiin aba qalad ahba hooyadaas Soomaaliyeed ee hadda arkaysiin ayadana waxay mudan tahay bilad sharafta hooyada Soomaaliyeed the best Somali mother in la siiyo ay mudan tahay madaxweynaha ayadana asagna waxaan ku codsanaynaa hooyo gabadhan agoonnimo kusoo korisay geed dheer iyo geed gaabanba u kortay in gabadhaas waxbarashadaas ku baasto kaalinta koowaad ee gasho hooyadaas ayadana yaa la dayicin waxaa dhihi lahayn dhan walba waxaa laga garab istaago ayaan dhihi lahayn marka hambalyo gabadhaas caasho runaantii waxaan leeyahay maalmahan oo dhan madax xanuun iyo siyaasad Soomaaliya iyo qurankeeda iyo dadkan qabiilada isku haysta hawada aan wareeriyay good news tan ka fiican ani ilmaha dhawaan inayna soo marayso hambalyo